guurka oo ah taranka bulshada ayaa marka ay rabaan in lamaanuhu ay sameeyaan qaata heerar kala duwan iyagoona kolka hore ka bilaaba isla saawid wuxuuna ku soo afmeermaa aqalgal balse dhalinyarada muddooyinkan dambe waxay ka cabanayeen caqabada ka hortaagan isxaaq oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Garowe ayaa SBC u sheegay in gabadhii uu guursan lahaa ay dhaqaale badan ku xirtay ayna ugu dambeyn keentay in uu guursan waayo anigu waxa hortaagan kharash la'aan awgeed qarash baan jinaanahay dhalinyarada iska ah marka isma keenayso kharashka qaato iyo guurkii gabadha sheeganayso marka sidaa darteed ayaan iskaga daayay guurkiisa baan gabadhu maxay ku soo bandhigtay marka gabadha lacag fara badan bay soo bandhigtay marka aniga sidii aan ku joojiyay guurka goorma ku qorshaysan marka inaad fuliso wallahi waqtigu ilaahay idmo insha Allah kuwa guursaday laftooda caqabadaha way la kulmeen Cabdinuur Cali Cismaan waxa uu ka mid yahay dhalinyarada dhawaan dhistay caqabada tani de qof walba way qabsanaysaa dhalinyarada inta hadda noloshan guurka ka soo baxday oo soo gashay oo dhan waagi hore dabcan marka koowaad qofku damcayo oo ku soo dhasho hamiga inuu guursado caqabadana hor istaagaysa ani caqabada tani markaan damcayay inaan guursado oo aan de hawsha tani fikirkan igu dhashay waaqicigi aan eegay waxaan ogaaday inay tahay de u baahan tahay dhaqaalaha qofku kaga fakarayo oo markuu banaanka ka joogo aan ogeyn inay si realistic u dhex taagan tahay noloshan caqabada marka hore qofka markii waxa loo sheegayo iyo markuu dhex galo way kala duwan yihiin marka banaanka joogtidu aaminsan tahay in guurku uu qaali yahay iyo markii aad inta dhex gashid macad inaad qabatid wali fikir baa u sii dhaxaynaya marka qaali weeye marka dhex galno oo sida habka uu dhacayo guurku markaan dhex galnay waan aragnay in guurku xogaa uu yahay qaali noqday laakiin alxamdulillah si qurux badan oo wanaagsan baan anigu ugu guuleystay dumarka ayaa iyana dhankooda waxa ay ku doodayaan in qaaliga guurka ay u qalmaan waa tan Samiira Cabdullaahi oo ka mid ah dumarka ama gabdhaha magaalada Garowe ku nool taas waa fikrad aan ka soo jeedno hadaan nahay dumarka sababteed dumarku qarash baa soo galay waqti baa soo galay barbaarin baa soo galashay intaas oo sana wax la soo bareeyay la soo barbaarinayay de maalintooda ayaga leh waa maalinta adduunka ee kaliya ay ku leeyihiin waa maalinta kaliya ee shakhsi ay leeyihiin waa maalinta kaliya ay rabaan de fikradooda iyo hamigooda iyo farxadooda inay helaan haddaba diintu maxay ka qabtaa qaaliga guurka maxaase ka dhalan kara waa kan Sheekh Maxamuud Xaaji Yuusuf oo arintaasi sharaxaya hadii meherkii iyo takaaliiftii guurka la adkeeyo waxa ka imaanaya guurkiyo yaraada guurku haduu yaraadana waxa ka imaanaya xumaantii iyo zinadii iyo faafta waxa yeelay qofkii dhalinyarada ahaa oo qaan gaaray hadaanu guurkiyo xalaal helin waliba maanta iyadoo fitan badan dhalinyarada ay la xiriiraan internet iyo wax kale fara badan waxa dhici ka dhah qofkii dhalinyarada ahaa wiil iyo gabarba qariisadiisa marka sama dareenkiisa inuu xaraan la aado ayaa dhici ka dhah markii guurkii lagu adkeeyay marka guurka in aad loo fuudeeyo madlab diiniya weeye shariicaduna ay fartay loona baahan yahay guurku markasta qaali ayuu ahaa gabdhihii hore waxa laga bixin jiray geel iyo xoolo balse gabdhaha haatan aqalgalkooda ayaa qaali ah Farax Maxamed Khaliif Farax Yemen TV-ga raadiyaha SBC Garowe